cudurka neefta wuxuu ka mid yahay cudurada qofka hadii jeer inayna uu chronic ku noqdo ama uu ku daaho. cudurka neefta wuxuu saameeyaa bronchial tubeska, tubooyinka soo qaada hawada sanbabadana u gudbiya. waxay noqdaan kuwa dabcan dhexdooda meeshii hawada ay mareysay luminika hawada dhexdeeda bronchial tubeka in ay noqdaan meel aada u ciriiri ah, neeftana aysan ka gudbi karin. ugu horeyntii allaah ayaa mahad leh. marka labaad dhammaan asxaabta beejka ku jirto intan ugu cusub waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. isu soo noqod wanaagsan. waxaan maanta rabnaa inaan dul istaagno cudurka asma ama sida loo wada garanayo neefta ama xiiqda. cudurkaas waxyaabaha sababa, qaababka uu ku imaado ayaan dul istaageynaa. dabcan cudurka neefta wuxuu ku imaadaa inta ugu badan laba qeybood. sida guud ahaan markii loo fiiriyo qeyb loo yaqaano atopic extrinsic iyo non atopic intrinsic. dabcan labadan qeybood midda atopic extrinsic dabcan wuxuu ku imaadaa waxyaabo qofka uu isticmaalo ama qofka uu qaato, taasoo jirkiisa ama awoodihiisa difaaceed ee immune cellska gaar ahaan respiratory systemka sanbabada, kuwaasoo ay ka hor imaanayaan qofkaas waxyaabaha uu qaadanayo. waxaa loo yaqaanaa hypersensitivity reaction type 1, gaar ahaan in jirkiisa uu ka hor imaanayo qofkan wax deegaanka dhinaciisa ugu imaade ama qeybaha kala duwan ee bulshada wax caadi dhankooda ka ah, balse asaga jirkiisa ay ka hor imaanayaan, taasoo ay sameynayaan in ay aada ugu bato ama lasoo daayo waxa loo yaqaano immune cellska ama unugyada difaaca. gaar ahaan kuwa lymphatic cellska loo yaqaano ayaa waxay soo deynayaan oo jirkana aada ugu badanaya neef mareenadana xirayo waxa loo yaqaano eosinophils iyo T helper cells, taasoo ay ka dhigaysa in sanbabadiisa ay aada u caburmaan, neefsani karin, neeftina ay dhibayso. waxyaabaha ugu badan ee qofka jirkiisa uu diidayo marka laga hadlayo atopic extrinsic, qofka waxaa jiro waxyaabo triggers risk ah qof inuu isticmaalo. waxaas markuu isticmaalana inay ku badanayso in naqaskii uu ku dhowo. waxyaabaha triggerska waxaa kamid ah kow environmental factors, deegaanka gudihiisa waxyaabaha aadka ugu badan, gaar ahaan infectionska weliba waxaa usii badan viral diseaseska, cudurada viruska ilma aragtada ah oo hadii jeer qofka ka asiibi kara sanka iyo afka. marka ay ku dhacaan cudurada viral diseaseska oo dabcan viruska uu sababo, hadii jeer qofka waxay noqotaa mid sanbabadiisu aada u shaqeynin, neeftana ay aada ugu dhagaan, bronchial tubeska ama tubooyinkii neefta soo qaadayna ay yihiin kuwa cabursama, dhexdoodana ay yaraato, unugyo badanna ay difaacooda oo ay soo daayaan, caabuq badanna meesha uu ka sameysmo. waxyaabaha kale oo kamid ah oo qofka hadii jeer la dhihi karo way kusii lixaadsataa calaamadaha neefta waxaa kamid ah daawooyinka qeybahooda kala duwan, sida aspirinka oo kale iyo beta blockerska, daawooyinka dhiigkarka loo isticmaalo. dadka qaarkooda marka ay qabaan hypersensitivity type 1 reaction wuxuu jirkooda uu diidaa daawooyinka qeybo kamid ah. marka ay isticmaalaan waxay isku arkayaan cabur iyo xasaasiyad iyo cuncun, taasoo loo baahanya qofka inuu iska ilaaliyo inuusan daawooyinkaas qaadanin. sida aan soo sheegno waxaa kamid ah daawooyinkan aspirinka uu ka sameysan yahay noocyadiisa kala duwan, iyo daawooyinkan dhiigkarka loo isticmaalo oo beta blockerska atenololka ay kamid yihiin. hadii jeer waxay leeyihiin bronchospasma wax loo yaqaanay in sanbabadii in neef mareenada, tubooyinka neef mareenada ay noqdaan kuwa aada u xirma, dhexdoodana neefta aysan ka gudbi karin. sidoo kale waxyaabaha kale oo qofka neefta aada u dhibaayo ama ka qeyb qaadanaya in uu dareemo calaamadihii neefta waxaa kamid ah allergen pollens, meelaha wasaqda ah ama meelaha hawadooda aada u wasaqeysan tahay. qofka haduu la kulmo ama uu dhex joogo waxaa laga yaabaa calaamadihii neefta inay aada ugu badanayaan, taasoo suurtagal aysan ahayn in qofka meeshaas uu joogo. allergen dustiska, meelaha wasaqda ah ama hawadooda ay wasaqeysan tahay ama boorka ay u badan yihiin, qofka waxaa laga yaabaa inay kusii lixaadsiiso neefta.
sidoo kale qofka neefta qaba waxaa kaloo aada ugu sii qeyb qaadanaya ama kusii lixaadsanaya inay neefta ay qabato cunooyinka qeybahooda kala duwan. waxaa jiro cunooyin uu ku leeyahay xasaasiyad, taasoo ay noqonaysa in qofka marka uu isticmaalo jirkiisa uu ka dareemayo cuncun, cabur sanka iyo dhuuntana uu dareemayo, taasoo ay noqonaysa in uusan neefsan karin, neef badanna uusan qaadan karin. cunooyinka qofka dhibayo oo neeftana ku saa-idin kara had iyo jeer waxaa kamid ah cunooyinka digirta. dadku iska mid maaha, dadka qaar ayaa waxaa dhiba cunooyinka digirta ee soomaalida aadka ugu badan tahay cambuulada. haddii ay isticmaalaan dabcan qofkaas habeenkaas ma joogi karo oo wuxuu isku arkaa cuncun badan iyo xasaasiyad badan, taasoo marka damben uu isku arko in cabur iyo sanka uu aada ka neefsan karin, dhuuntana ay aada u xirantay. sidoo kale cunooyinka oo dadka neefta qaba ay sii dhibi karaan had iyo jeer oo jirkooduna uu diidayo waxaa kamid ah malaayga qeybihiisa kala duwan, doorada, sidoo kale waxaa kaloo kamid ah ukunta iyo waxyaabaha laga sameeyo. had iyo jeer cunooyinkaas aan kasoo hadalnay dadka alerjiyada maqaarka qaba ama xasaasiyadda guud ahaan qaba waxay noqonaysaa inay iska ilaaliyaan, sababtoo ah waxa ay leeyihiin hypersensitivity reaction type 1. cunooyinkaas had iyo jeer brotiinada ay ka sameysiin ayaa waxaa ka hor imaanaya habdifaaca uu jirka uu leeyahay, immune cellska, gaar ahaan respiratory systemka ayaa waxaa lagu soo deynaa kuwii hore aan ugu soo hadalnay kala ahay inflammatory cells iyo goblet cells oo ay kamid yihiin mast cells, macrophages, histamines iyo eosinophils, neutrophils ayaa aada ugu badanayo. qofka waxa kaloo dhibayo waxaa kamid ah neefta marka uu qabo inuusan orod badan sameyni karin, haddii uu ordana naqaska uu ku dhagayo. sidoo kale waxaa lagu arkaa neefta, sidoo kale waxyaabaha neefta dhibaya waxaa kamid ah cold air, hawada aadka u qabow. xiliyada qaarkood oo kale dabcan xiliyada ee qabowga aadka u badan yahay waxaa la arkaa dadka qaarkood inay naqaska uu ku dhago, ee cabur badan ay dareemaan, neefsan karin. dabcan neeftu cimilada waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka jirkiisa kusii lixaadsan kale ayay kamid tahay, waliba marka ay jiraan qaboobaha qeybahooda kala duwan. anigoo ah Dr. Maxamed Liibaan Maxamed, aada iyo aada idinkaga mahad celinaa neefta waxyaabaha sababa iyo siday u imaado. maanta halkan ayaan ku joojinaynaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.